halkan waa Som Canada TV kulanti wanaagsan wararkan caawa idin hayna waxa ugu waaweyn dowladda Turkiga oo qaaday tallaabo ka cadaysay reer galbeedka Ruushka oo arrin argagax leh ka sameeyay dalka Ukraine wada hadallada Ruushka iyo Ukraine oo mar kale dib u bilaabanaya iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa daawadayaashan qiimaha badan balse marka hore aan ku bilowno Ruushka ayaa arrimo naxdin badan Ruushka waxaa la sheegayaa arrimo badan oo naxdin leh inuu ka sameeyay dalka Ukraine saxafiyiin sawir qaadayaal oo ku sugan gudaha Ukraine ayaa soo qaaday sawir naxdin leh oo muujinaya natiijada ka dhalatay weerar Sabtidii ka dhacay magaalada Lviv xarunta lagu keydiyay shidaalka iyo warshada ayaa lagu garaacay gantaalada nooca loo yaqaan Kursk ee Ruushka uu leeyahay taasoo dhalisay inuu dab ka kaco halkaasi gudoomiyaha gobolka Lviv ayaa sheegay in 5 qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen weerarkaasi kuwa kalena ay ku geeriyoodeen dowladda Turkiga waxa ay qaaday tallaabo aad u cadaysay dalalka reer galbeedka wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa sheegay in maalqabeennada Ruushka ee loo yaqaano oligarchy ay sii wadi karaan in ganacsiyadooda ay ka sameeyaan Turkiga inta ay ilaalinayaan sharciyada dalka iyo kan caalamiga ah wasiirka oo lagu wareystay madasha Dooxa ee Qatar ayaa la weydiiyay haddii maalqabeennada Ruushka ay wajahaan cunaqabateynta reer galbeedka ay ka ganacsan karaan Turkiga wasiirku waxa uu sheegay ganacsatada maalqabeennada ee Ruushka ah ee cunaqabateynta ay saareen dalalka reer galbeedka ay ka ganacsan karaan dalkooda Turkiga dabcan haddii ay tahay sharci haddii aysan ka hor imaanaynin sharciga caalamiga ah waan ka fiirsan doonaa ayuu sii raaciyay wasiirka haddii ay ka hor imaanayso sharciga caalamiga ah taasi waa sheeko kale laba ka mid ah doomaha raaxada ah ee uu leeyahay milyuneer Ruush ee Roman ayaa toddobaadkan ku xirtay dalka Turkiga mar wax laga weydiiyay xaaladda ayaa wasiirku waxa uu sheegay in Turkiga uu fulinayo cunaqabateynta ay ansixisay qaramada midoobay tallaabooyinka lagu beegsanayo hantida maalqabeennada Ruushka ma aysan ansixin qaramada midoobay balse waxa soo rogay dalalka reer galbeedka oo ay ku jiraan Mareykanka iyo kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub waxay sidoo kale soo rogeen tallaabooyin aan horey loo arag oo ka dhan ah Ruushka sabab la xiriira duulaanka ay ku qaaday Ukraine waxaana ka mid ah in liiska cunaqabateynta lagu daro maalqabeennada iyo shakhsiyaadka ku dhow Putin dhowr dal ayaa la wareegay doomo raaxo oo ay leeyihiin maalqabeenno Ruush ah iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka digay in xulafada ay u imaan doonto hantida aad sida sharci darrada ah ku hesheen hase yeeshee Turkiga oo xubin ka ah NATO isla markaana xiriir dhow la leh Ruushka iyo Ukraine kuma aysan biirin dalalka reer galbeedka ee beegsanaya ganacsatada Moscow dhinaca kalena wada hadallada Ruushka iyo Ukraine ayaa dib u bilaabanaya wareegga labaad ee wada hadallada u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa maanta oo Isniin inay ka furmi doonaan waddanka Turkiga David Akroniya oo ah ergeyga Ukraine u qaabilsan wada hadallada ayaa xaqiijiyay in wareegga labaad ee wada xaajoodka ay bilaaban doonaan xashir aaladda muuqaalka fogaan aragga isugu yimid mas'uuliyiinta wada hadallada u qaabilsan Ruushka iyo Ukraine waxaana la go'aamiyay in wareegga xiga ee wada xaajoodka labada wafdi la qabto 28 ilaa 30 bishan ayuu bartiisa Facebook ku soo qoray ergeyga dowladda Canada waxay ballanqaad weyn u sameysay dalalka reer galbeedka Canada waxa ay sheegtay inay bixi karto saliid iyo gaas iyo uranium badan si gacan uga geysato xalinta dhibaatada tamarta adduunka ee ka dhalatay dagaalkii Ukraine waxa sare u kacay qiimaha shidaalka kadib markii reer galbeedka ay Ruushka cunaqabateyn ku soo rogeen Ruushka waxa uu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee bixiya gaaska saliidda iyo uraniumta Israa'iilna waxay hirgelinaysaa kulan muhiim ah oo looga hadlayo nuclearka Israa'iil ayaa bilaabi doonta martigelinta shir taariikhi ah oo ay ka qayb galayaan 4 waddan oo Carab ah iyo Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Imaaraadka Carabta Bahrain Morocco iyo Masar ayaa ka qayb gali doona shirkan oo ka dhacaya Saxaraha Negev sanadkii 2020 ay Imaaraadka iyo Bahrain cadaadiyeen xiriirkii ay la lahaayeen Israa'iil taasoo qayb ka ahayd dhexdhexaadinta Mareykanka Morocco ayaa sanadkii hore raacday tallaabadii Imaaraadka iyo Bahrain jimcihii Morocco waxay heshiis isafgarada la saxiixdeen Israa'iil kaasoo ku saabsan iskaashiga militariga sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada sirdoonka Israa'iil wada hadallada ayaa la filayaa in diiradda lagu saari doono dagaalka Ukraine iyo heshiiska nuclearka ee Iran wada hadalladan ayaa loo arkaa caddayn la taaban karo oo ah in heshiiska caadiga ahaa Mareykanka ee garwadeenka ka ahaa 2 sano ee la soo dhaafay ay bilaabeen inuu miro dhalo waa markii ugu horeysay oo Israa'iil martigelinayso saraakiil sare oo Carbeed oo aad u tiro badan taasoo muujinaysa sida ay isugu soo dhawaanayaan danaha xulafada Mareykanka iyo Bariga Dhexe sida uu sheegay wariye ku sugan magaalada Qudus
Washington ayaa ku cadaadin doonta taageero dheeri ah oo ay bixiso dadaalada ay ku doonayso inay go'doomiso Ruushka, taasoo dhinacyo badan oo gobolka ka tirsan ay ilaa iyo hadda ka gaabsadeen joogitaankooda ciidamada Ruushka ee Ukraine iyo walaac ku saabsan qamadiga laga keeno labada dal ee dagaalamaya. dhanka kale Israa'iil iyo dalalka Carabta ee shirka ka qaybgalaya ayaa walaacooda muujin doona xilli Mareykanka iyo quwadaha kale ee caalamka ay u muuqdaan inay qarka u saaran yihiin inay heshiis cusub oo nuclear la saxiixdaan Iiraan. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlayaa sababaha cusub ee iskaashiga dhanka tamarta oo socon doona muddo 2 maalin ayaa waxaa daba socda shir 3 geesood ah oo ay Masar martigelisay Talaadadii la soo dhaafay. kulankaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi, ra'iisul wasaaraha Israa'iil dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Sayid Al Nahyan oo ah hogaamiyaha Imaaraadka Carabta. Masar waxay ahayd wadankii ugu horeeyay ee Carbeed ee heshiis nabadeed la saxiixday Israa'iil sanadkii 1979 kadib 10 sano oo colaad ay u dhaxaysay. heshiisyadii ugu dambeeyay ee xiriirka diblomaasiyadeed iyo kuwa ganacsi ee ku kala saxiixdeen Israa'iil iyo 3 dal ee Carbeed ayaa waxay bog cusub u fureen taariikhda dalalka cadaawada gaamurtay ee dhex taalay. mowqifka rasmiga ee dalalka Carabta heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa waxa uu soo kordhiyay cabsida iyo rajada dadka qaar ay ka qabeen in mustaqbalka la arki doono Israa'iil oo galaangal weyn ku yeelata gobolka Carabta gaar ahaan Khaliijka. cabsidaasi ayaa waxaa laga dareemi karaa baraha bulshada oo ay ku wada xiriiraan kaasi oo dadka aarahdooda gaarka ah ay ku wadaagayeen iyo waxyaabaha ka dhalan kara heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil gaar ahaan qadiyadda Falastiin iyo xaaladda amni ee siyaasadda Carabta. heshiisyadii u dambeeyay ee xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo 3 dal ee Carbeed ayaa waxay bog cusub u fureen taariikhda dalalka cadaawada gaamurtay ay dhex taalay. dhinaca kale Al-Shabaab waxay soo bandhigeen ninkii isku qarxiyay xildhibaan Aamino Beesha uu ka soo jeedo. dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa baahiyay magaca iyo qabiilka iyo shakhsiga fuliyay weerarkii habeenno ka hor ka dhacay magaalada Beledweyne ee lagu bartilmaameedsaday Allah u naxariistay xildhibaan Aamino. warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegay ninkii isku qarxiyay agagaarka madaxtooyada magaalada Beledweyne inuu ka soo jeedo beesha Mareexaan Jufada Cali Dheere, iyagoo sheegay inuu ka soo jeedo degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado. warkii oo aad kala socoteen Som Canada daawadayaal caawa waa naga intaas.